I'm Dr. Mu'taz Bashir, cardiologist working on Somali Sudanese specialized hospital, cardiology department. We are very happy to celebrate with you. magacaygu waa Dr. Mu'taz Bashir. waxaan ahay dhakhtar wadne cardiologist oo ka shaqeeya isbitaalka takhasusiga ee Somali Sudanese qaybta cudurrada wadnaha. aad baan ugu faraxsanahay inaan kula dabaaldego maalinta caalamiga ah ee wadnaha. And in the heart day, just we need to give some advice to keep your heart healthy. So first of all, we start the first advice, you need to move more. You need to move more. So at least 30 minutes walking per day. waxaan rabaa inaan ku siiyo talooyin muhiim ah si aad u ilaaliso caafimaadka wadnahaaga. talada koowaad waa inaad dhaqaaq badan samaysaa ugu yaraan 30 daqiiqo oo jimicsi ah maalin kasta. talada labaad waa inaad cuntaa cunto dabiici ah kana fogaataa sonkorta badan, cusbada badan iyo cunto warshadaysan processed foodka. talada saddexaad waa inaad u seexataa si fiican. hurdada wanaagsan waxay caawisaa ilaalinta caafimaadka wadnahaaga. sidoo kale waa inaad ka fogaataa wax kasta oo keena walwalka iyo stresska. talada afaraad jooji caadooyinka xun sida sigaarka iyo khamriga. talada shanaad aad bay muhiim u tahay in qof walba gaar ahaan dadka ka weyn 40 sano ay iska hubiyaan caafimaadkooda. waa inaad ogaataa heerkaaga dhiigkarka, sonkorta dhiiga iyo heerka kolestaroolka. The level of your cholesterol. And lastly, you have to love and love. Thank you.